madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo weli ku sugan magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo kaga qayb galay madasha caalamiga ee dawladaha adduunka ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya waxa uu siiyey telefishinka Sky News. madaxweynaha ayaa ka hadlay aqoonsiga Soomaaliland bogcadda muhiimka ee ku taalo iyo fursadaha maalgashi ee yaala. sidoo kale waxa uu ka warramay xiriirka caalamiga ee Soomaaliland la leedahay adduunka iyo sida ay uga go'an tahay inay noqoto dal la isku halayn karo. waraysiga ayaa ku bilaabmay. ugu horreyn su'aasha la isweydiinaya waxa weeye kala tagga ama kala go'a Hargeysa iyo Muqdisho ma mid dhammaadayba mise waxa jira xiriir dambe ama midnimo dambe ha dhawaato ama ha fogaatee. I think the separation of Somaliland and Somalia is final. It became final on 18 May 1991. ma jirto midnimo dambe. waxa uu soo xidhbay ka hadalkeedu 18 May 1999 markaasoo Somaliland ay madax bannaanideeda dib ugaga dhawaaqday Burco 18 May 1999 kadib midowgii aanu la galnay Soomaaliya 26 Juun 1960 dadka reer Somaliland oo ka kala yimid gobolada oo dhan waxay galeen halgan socday muddo ku dhow 10 sano. halgan ay ku nafwaayeen in ka badan 200 oo kun oo muwaadin oo reer Somaliland Nearly a million people were fled to Ethiopia for their security. ku dhawaad 1 milyan oo kalena ay ku barakaceen kuwaasoo naftooda ula cararay Ethiopia. nasiib wanaag dowladda Israa'iil ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah oo aqoonsaday Jamhuuriyadda Somaliland 26 Disembar 2025. sidaa daraaddeed arrintaasi waa mid aan ka noqon lahayn. That's final. بالنسبة لهذا الاعتراف كيف تنظرون madaxweynaha ayaa la weydiiyey sida uu arko falcelinta ka dhalatay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland iyo mowqifka ay ka istaageen dalalka Carabta iyo Islaamka qaarkood iyo inay ahayd arrintaasi mid ay filinaysay Somaliland. waxaana uu yidhi تنظرون إليه نظرة جدية؟ It is our belief that Somaliland have a right. shacabka Somaliland waxay xaq u leeyihiin ay ka tashigooda. waxaanu ka rajaynaynaa walaalahayaga Carbeed, walaalahayaga wadamada Islaamka iyo walaalaha Midowga Afrika inay si dhab ah u fahmaan taariikhda Somaliland. sida dalal badan oo Afrikaan ah, Somaliland waxay noqotay dal madax bannaan kadib markii ay xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska 26 Juun 1960. We are not separating from Somalia. We have been a sovereign state on 26 June 1960. saa daraaddeed Somaliland kama go'ayso Soomaaliya balse waxay hore u ahayd dal madax bannaan oo jiray 26 Juun 1960 ka hor intii aanay Soomaaliya noqon dal madax bannaan. sidaas awgeed waxaanu ka sugaynaa inay aqoonsadaan Somaliland. waxaa jira dalal laga yaabo inay si khaldan u fahmeen arrinta Somaliland kuwaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah walaalahayaga Carbeed. waxaan si ixtiraam leh uga codsanaynaa inay dib u eegaan mowqifkooda isla markaana ay aqoonsadaan Somaliland. Ultimately, there is no retain from that decision. ma jirto dib u noqosho. waxaanu doonaynaa inaannu ilaalino xiriirka walaaltinimo ee aanu wadaagno dhammaanba dalalka Carbeed iyo kuwa Islaamka ah. And Islamic countries as well. بعد 30 عاما هل madaxweynaha ayaa la weydiiyey su'aal la xidhiidha sida Somaliland ay u aragto in muddo ka badan 30 sano aanay helin aqoonsi caalamiya iyo in Somaliland ay ku qanacsan tahay xaaladda ay ku jirto ee dhinacyada sharciga iyo xiriirka ay caalamka la leedahay. The independence of Somaliland is more than 30 years. madax bannaanida Somaliland waa ay ka badan tahay 30 sano. waxaanu noqonnay dal madax bannaan 26 Juun 1960. sidaas awgeed Somaliland waxay raadinaysay madax bannaani iyo qarannimo tan iyo sanadkii 1961. xilligaas oo isku day afgembi military ay sameeyeen saraakiil ka soo jeeday Somaliland kaasoo dhacay hal sanno kadib midowgii. marka laga soo bilaabo 1961 waxaanu ku raad joognay sidii aanu ula soo noqon lahayn qarannimadayada. marka waa in ka badan 60 sano ee maaha 30 sano. So from 1961, we were seeking back our sovereignty. It's over 60 years, but 30 years. الوضع الجيوسياسي الآن في القرن الأفريقي غير xaaladda juqraafi siyaasadeed ee geeska Afrika ee aan deganayn kaasoo laga yaabo inay ka dhici karaan isbeddello waaweyn oo qaarkood khatari ka iman karto iyo saamaynta arrintaasi Somaliland ay ku leedahay ayaa sidoo kale madaxweynaha wax laga weydiiyey. waxaana uu yidhi Well, we believe the coexistence of nations. Our foreign policy is independent. siyaasaddeeda arrimaha dibaddu waa mid madax bannaan. waxaanu doonaynaa inaannu ixtiraamno nabadkooda noolaanshaha dariskayaga sida Jabuuti, Soomaaliya, Ethiopia iyo weliba dalalka kale ee gobolka. siyaasaddayadu waxay ka soo horjeedaa xasilooni darrada. waxaanu taageeraynaa dariiq nabadeed oo aanu kula dhaqanno waddamada jaarkayaga. iyagana waxaanu ka rajaynaynaa mid taas la mida. We expect a similar
from other neighbors as well. madaxweynaha ayaa mar kale ka jawaabay su'aal la xidhiidhay in somalilan gaadhay ama ay xaqiijisay ujeeddooyinkii ay dib ugula soo noqotay madax bannaanideeda. I think the world is a witness. We have proved that Somaliland exists. waxaan aaminsanahay in arrintaas ay adduunyadu markhaati ka tahay. waxaannu caddaynay inaannu nahay xaqiiqo jirta. waxaannu nahay waddan. waxaannu leenahay wax kasta oo waddan lagu noqdo. Sovereignty, we have peace, we have army, we have police, we have passports, we have our own currency. waxaannu nahay dal xasiloon. waxaannu leenahay madax bannaani. waxaannu nahay dal nabdoon. waxaannu leenahay ciidan. waxaannu haysannaa boolis. waxaannu leenahay lacag iyo baasaboor noo gaara. waxaannu samaynay nidaam cashuureed oo noo gaara. ma jirto cid aannu ku tiirsannahay. No one gives us a donation. الموانئ الموجودة في المنطقة كيف waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wax laga weydiiyey dhaqaalaha somalilan iyo goobta muhiimka ee ku taallo dekedda berbera iyo doorka somalilan ee gobolka waxaana uu yidhi It is an open secret that everyone knows. Berbera is strategically located an important port in the Gulf of Aden. waa arrin daahfuran oo qof waliba og yahay in berbera ay ku taallo goob muhiima ayna tahay dekad istaraatiiji oo dhacda gacanka cadmeed. waxaannu aad ugu faraxsannahay inaannu dekeddaas leenahay. somalilan waxay leedahay 850 kilomitir oo xeeba. waxaannu u mahad celinaynaa d b wel oo ku maalgelisay dib u casriyeynta dekedda ku dhowaad $500,000,000. sidaa darteed maanta berbera waxay tahay marin muhiim u ah gobolka iyadoo u adeegta dalalka aan badda lahayn ee afrika. African landlocked countries including Ethiopia and beyond. way ku jirto Ethiopia iyo meelo kaleba. sidoo kale maalgashigani waxuu soo jiitay shirkado kale inay maalgashadaan somalilan kuwaasoo ay ku jiraan kambaniye carbeed sida kuwa shidaalka. waxaa sidoo kale d b wel ay berbere ka hirgelisay aagga cashuuraha ka caagan. haddana waxaa socda wadda isku xidhaysa somalilan iyo Ethiopia taas oo aan ugu yeedhno berbera corridor. So Somaliland now has a port, a modern port, a logistics hub, a free zone, a corridor that connects to the interland Africa. sidaa daraaddeed hadda somalilan waxay leedahay deked casriya, marin muhiima, goob ka caagan cashuuraha iyo waddo isku xidhaysa afrika. sidoo kale waxaannu aagga warshadaha ka cayinnay magaalooyinka berbera, hargeysa iyo burco halkaas oo lagu soo dhoweynayay cid kastoo rabtay inay somalilan maalgashi warshadeed ka hirgeliso. I think the recognition of Israel also will increase the number of investors who are willing now to come. We have peace, we have stability, we have democracy. sidoo kale waxaan rajaynayaa in aqoonsiga israa'iil uu kordhin doono tirada maalgashadayaasha doonaya inay yimaadaan somalilan. waxaannu nahay dan labada xasiloon dimuqraadiya. waxaannu leenahay jiil dhallinyaro ah oo karti badan kuwaasoo noqon kara shaqaale diran oo ka shaqeeya mashaariicda maalgashiga. We have an abundance of minerals and oil and gas. We have a livestock, a very beef market, meat basket for Gulf countries. somalilan waxaa yaalla fursado badan oo dhanka maalgashiga. waxaa dhulkayaga cegaagta macdan. waxaannu leenahay saliid iyo gaas. waxaannu leenahay xoolo nool oo suuq dhanka hilibka u noqon kara dalalka khaliijka. waxaannu qani ku nahay khayraadka badda sida kalluunka oo loo dhoofin karo dalalka carabta iyo yurub. waxaannu leenahay dhul san oo ku wanaagsan waxbeerashada, xeeb ku habboon dalxiiska iyo qaybo kale oo dhammaantoodba ku wacan maalgashiga. هناك أيضا حضور إقليمي. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka jawaabay sida somalilan ay u aragto joogitaanka gobolka ee dalalka kale carbeed ama waddamada kale ee bariga dhexe iyo sida ay arrintaasi u qiimeeyaan. waxaana uu yidhi In general, my policy or the policy of the government of Somaliland is to welcome investors. We will encourage. si guud siyaasadda somalilan waa inaannu soo dhoweyno maalgashadayaasha. weliba waxaannu ku dhiirigelinaa dalalka carabtu inay maalgashadaan somalilan sida qatar, sacuudiga iyo masar. We want to keep our brotherly relations with them despite our differences in politics. waxaannu doonaynaa inaannu wanaajinno xidhiirka walaaltinimo ee naga dhexeeya inkastoo ay jirto kala duwanaansho dhanka siyaasadda. madaxweynaha ayaa waxaa kale oo la weydiiyey aqoonsi la'aantu inay caqabad ku noqon karto dhanka horumarka iyo maalgashiga somalilan. No, because we have not been recognized for 35 years
but that encouraged our people to be self-dependent. waxaan aqoonsi la'aan ahayn in ka badan 35 sanno taasina waxa ay ku dhiirigelisay shacabka iyagu inay noqdaan kuwa adkaysi badan oo isku tashada waxay dhisteen dalkooda iyo magaalooyinkooda waxay abuureen ganacsiyo waxay maalgeliyeen kaabayaasha nolosha oo dhan When I went back to Hargeisa, it was totally different in 1999. And today it is one of the waxaan ku laabtay Hargeysa way ka duwaneed sidii ay ahayd 1999kii maanta waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu kordhinka badan gobolka berberina waa la mid taasi waxay nagu dhiirigelinaysaa inaanu noqonno kuwo isku filan xitaa aqoonsi la'aan It encouraged strength to my people that they have not been recognized. الوضع الجيوسياسي madaxweynaha waxaa la weydiiyey su-aal u dhigneyd xaaladda juqraafi siyaasadeed iyo iska horimaadada ka jira gobolka sida ay somalilan u leedahay awood ay iskaga dhowrto ama uga fogaato si aanay u noqon fagaare ay ku loolamaan quudaha caalamiga ama kuwa gobolku We don't want to be a part of any proxy wars in the region. ma doonayno inaannu qayb ka noqonno dagaal We wakaaladeedka want to be friendly with all neighboring countries. waxaannu doonaynaa inaannu xidhiir fiican la yeelanno dowladaha deriskayaga inkastoo ay jiraan kuwa soo farageliya arrimaha somalilan iyo deganaanshaheeda laakiin annagu cidna cadow kuma nihin in nala aqoonsadaa waxay u keenaysaa gobolka deganaansho iyo Our nabad recognition will be peaceful stability, peace for the region, not instability. ma keenayso xasilooni darro welina waannu awoodnaa inaannu difaacno dalkayaga بالنسبة للتحديات الأخرى كذلك الإرهاب كانت جزء madaxweynaha waxaa kale oo la weydiiyey mushkiladaha gobolka sida argagixisada iyo sida somalilan ay door ugu leedahay xasiloonida gobolka الوضع اليوم وما هي الأدوار التي قمتم بها في هذا الإطار؟ Well, like any other country in the region or in the world, Somaliland, the terrorists are a reality which exists. sida gobolka iyo dunida laga qirsan yahay argagixisadu waa xaqiiqo jirto khatar ku ah gobolka waxa keliya ee aan odhan karaa waxa weeye inaannu nahay kuwo feejigan Our people are totally, everyone in Somaliland is a police woman or a police man. dadkaygu waa dad isku duuban qof kastoo somalilan jooga waa askari rag iyo dumarba waxa ay ka difaacaan ama ka ilaaliyaan dalkooda wax kasta oo soo faragashada وفيما يتعلق بتعاونكم مع دول الإقليم في هذا الإطار هل هناك كذلك arrimaha la xidhiidha mushkiladaha gobolka ma jiraan iskaashi aad la leedihiin muqdisho oo ku saabsan la dagaalanka argagixisada burcadbadeeda ama khataraha ay wajahayaan marinada maraakiibta caalamiga ah ee maraan We wish, but we don't have that. waannu relationship. rajaynaynaa balse waxaan u malaynayaa inaanay jirin wada shaqayn ka jirta aaggaas أو ma u malaynaysaa inay jirto fursaddaasi bise waxaa jiray isku dayo arrintan ku saabsan oo aan There's guulaysan no, I think, engagement in that area. But laakiin we are waannu soo working dhoweynaynaa on iskaashi any kasta cooperation oo and lagula dagaalamaya argagixisada gobolka So any engagement, we have an engagement now with Puntland. waxaa jira iskaashi iyo wada shaqayn naga dhexaysa puntland taasoo aannu iskaga kaashanno dhanka nabadgelyada argagixisada iyo tahriibka sharci darrada ah Illegal immigration. We have working relations with Puntland. وفيما يتعلق اليوم في madaxweynaha waxaa kale oo wax laga weydiiyey arrinta la xidhiidha aqoonsiga somalilan iyo xidhiirka somalilan iyo israa'il iyo sidii uu ku bilaabmay waxaa kale oo madaxweynaha la weydiiyey waxaa somalilan ay ku beddelatay aqoonsiga ay ka heshay israa'il iyo in somalilan ay qabashay in dalkeeda la keeno dad ka yimi ama laga هل soo هناك raray ثمن balse ما Yes, I think it was the Israeli government wanted more Arab countries to recognize Israel. waddamo badan ayaa doonaya inay aqoonsadaan israa'il annaguna aqoonsiga aan u baahan nahay waa mid laba geesooda They need our recognition and we recognize it. aqoonsigooda ayaan u baahan nahay iyaguna kaayaga ayay u baahan yihiin وفكرة أنكم سوف تستقبلون أهالي من غزة هل هذه الفكرة موجودة مطروحة؟ This is not proposed, it is not discussed, and it doesn't exist. lagama wada hadal lagama wada doodin mana jirto waana war been abuura وهل تتوقعون بعد هذا الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال أن هناك دول أخرى سوف sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ka jawaabay su-aal laga weydiiyey ma filaysaan kadib aqoonsiga israa'il ee somalilan inay jiraan dalal kale oo aqoonsan doona waxaana uu ku jawaabay We expect, it is our expectation that we will get more governments to recognize for Somaliland
waxaan rajaynaynaa in waddamo badan ay aqoonsiga somalilan ku soo biiraan ha noqdaan waddamada carabta kuwa muslimiinta ama kuwa afrikaanka xitaa ha noqdaan waddamada latin america waxaan qoray 193 waraaqood oo aan adduunka u kala diray 17 May 2025 Israel ayaana noqotay wadankii ugu horreeyay ee ka soo jawaaba waxaan rajaynaynaa inaanu helno jawaabo kale oo la mid ah tan Israel الفكرة السائدة حول الدول وانفصالها أو وحدتها madaxweynaha waxa kale oo la weydiiyey su'aal la xidhiidhay gooniisutaaga ama midnimada dalalka iyo maadaama oo Somaliland ay dalbanayso inay gooni isu taagto iyo inay Somaliland samaysay dadaal diblomaasiyadeed oo ay qadiyadeeda ku gaarsiinayso dunida inteeda kale waxaana uu ku jawaabay it is my duty to reach waxaan isku daynay inaanu gaadhno dal kasta oo dunida ah si aanu ugu soo bandhigno qadiyadda Somaliland and most of them as I said don't understand the history of Somalia intooda badan sidaan sheegay ma fahansana taariikhda Somaliland ama Soomaalida guud ahaan in 1884 Somali speaking territories have been divided into 5 sanadkii 1884 dhulkii lagaga hadlayay afka Soomaaliga waxa loo qaybiyay 5 qaybood qayb waxa loo bixiyay Soomaalida Faransiiska oo waa Djibouti qayb waxa loo bixiyay Soomaalida Ingiriiska oo waa Somaliland qayb waxa loo bixiyay Soomaalida Talyaaniga qaybna Itoobiya ayay ka mid noqotay qaybna Kenya Somaliland was the first of these 5 parties which became independent on 26 June 1960 Somaliland waxay ahayd tii ugu horreysay ee 5taas qaybood xorriyadda ugu hor qaadata 26 Juun 1960 waxa aqoonsaday in ka badan 35 dal oo ay ku jirto Israel xilligaas laakiin waxay bixiyeen waa Somaliland ee madaxbannaanidoodii si ay u mideeyaan dhammaan Soomaalida kale It was Somaliland who made the unity and because of the incidents and the killings that happened against Somaliland decided to stay away from the Somaliland ayaa samaysay midnimadaas laakiin dhibaatooyinkii iyo dilalkii dhacay waxay go'aansadeen inay ka baxaan midnimadaas dad badan ma fahansana taariikhdaasi unity of Somalis is required Djibouti then must join Somalia it was part of it yes the killing of Somali state of Ethiopia was part of Somalis haddii midnimada Soomaalidu dhab tahay maxaa looga reebay qaybihii kale meeday Soomaalida Ethiopia aaway Soomaalida Kenya meeday Djibouti haddii la rabo midnimo Soomaaliyeed waa in dhammaantood ay midoobaan why it makes an exception a unity between Somalia and Somalia waxa midnimada loogu koobay ama looga dhigay mid u dhaxaysa Somaliland iyo Soomaaliya oo kaliya waxaan u malaynayaa inay taasi tahay khalad